Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii soo saaray bayaan xooggan oo ku muujinayo taageerada Mareykanka ee Soomaaliya, isagoo uga digay Xuutiyiinta inaysan leh ka helaan dalka, sidoo kale la bogaadiyey duqaamo dhowaan la beegsaday kooxda Daacish ee ku sugan Puntland. Bayaanka oo lagu daawacay barta Truth Social ayaa sidoo kale u muuqda mid wiiqaya dadaaladii diblomaasiyadeed ee Somalilan ay ku doonaysay inay ku hesho aqoonsi rasmi ah oo Mareykanku siiyo. Garab taagana shacabka Soomaaliyeed waa inaysan ogolaan in Xuutiyiintu ay gudaha u galaan dalka, taas oo ay isku dayayaan si loo codurto argagixisada loona gaarsiiyo dalka horumar iyo barwaaqo, ayuu Trump ku yidhi qoraalkiisa. Hadalka Trump ayaa imaanaya iyadoo dhowaan madaxweynaha Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu dib u doorashada Trump ku tilmaamay fursad ugu weyn ee Somalilan ay ku heli karto aqoonsi caalami ah. Masar Ciro ayaa u sheegay New York Times inuu rumaysan yahay in aragtida Trump ee ganacsiga ku dhisan ay noqon karto fure inuu Mareykanku ugu dambeyn aqoonsado Jamhuuriyadda isku magacaawday ee Somalilan. Ayaa u sheegay New York Times inuu rumaysan yahay in aragtida Trump ee ganacsiga ku dhisan ay noqon karto fure in Mareykanku ugu dambeyn aqoonsado Jamhuuriyadda isku magacaawday ee Somalilan. Anigii shacabka Somalilan waxaan si dhab ah u aaminsanahay in maskaxda ganacsiga ee madaxweyne Donald Trump ay dhab ah u xaari karto aqoonsigeena, ayuu yidhi Ciro. Si kastaba, taageerada cad ee Trump u muujiyey dowladda federaalk Soomaaliya iyo sida Soomaaliya ugu tilmaamay xulufo istaraatiiji ah oo muhiim u ah la dagaalanka argagixisada ayaa si weyn u niyad-jabi karta rajooyinka Somalilan. Bayaanka Trump ayaa yimid kadib markii taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ay xaqiijiyeen in 1 Febraayo 2025 uu fuliyey duqeymo lala kaashaday dowladda federaalk Soomaaliya. Duqeynta ayaa lala beegsaday hoggaanka asaasiga Soomaaliya, kuwaasoo ku dhuumanaysanayay godad buuraley ah oo ku yaala qiyaastii 50 meel koonfur bari kaga beegan magaalada Boosaaso. Duqeyntaas ayaa lagu bartilmaameedsaday hoggaanka asaasiga Soomaaliya, kuwaasoo ku dhuumanaysanayay godad buuraley ah oo ku yaala qiyaastii 50 meel koonfur bari kaga beegan magaalada Boosaaso. Kon ayaa sheegtay in duqeymahaas lagu dilay ilaa 40 xubnood oo ka tirsanaa SAC, kuwaasoo ka mid ahaa Axmed Milaani oo ka tirsanaa kooxda kala shaqayn jiray qorista dagaalyahanada, maalgelinta, qorsheynta weerarada ka baxsan gudaha Soomaaliya, oo ay ka mid ahaayeen dadaalo lagu gelinayay dagaalyahanno gudaha Mareykanka iyo qaaradda Yurub. Ayaa sidoo kale sheegay inuu meesha ka saaray caqabadii xukuumaddii hore ee uu sheegay inay hor istaageen awoodda buuxda ee ciidamada Mareykanka. Waa wakhtigii argagixisadu ay qarsan lahaayeen, balse ma waayi doonaan cadaalad. Ciidamadeennu waa kuwa ugu awoodda badan ee dunidu aragtay, way heli doonaan oo si degdeg ah cadaalad ugu fuliyaan, ayuu yidhi Trump. Waxaan meesha ka saaray xeerarkii khatarta ahaa ee John Biden. Waxaan mar kale awood siiyey ciidamadeenna sidan hore ugu sameeyey dagaalkii aan la galay SAC oo aan 3 toddobaad gudahood ku burburiyey xilligii Jenaraal Gani oo ah taliyaha cusub ee ciidamada Mareykanka. Haddaba, taageeridda Trump oo siiyey Muqdisho waxa ay u muuqataa in ay albaabkii fursadda ka xirtay Somalilan.